Kusimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa Masjidka Shuhada ee madaxtooyada qaranka uga qayb galay salaada janaasada ee Allah u naxariistay marxuum xildhibaan Maxamuud Maxamed Seesay oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed xildhibaanada Golaha Shacabka oo ka tirsanaa iyo eheladiisa waxa uu uga tacasiday geerida marxuum Maxamuud Seesay waxaana marxuumka looga bariyay inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uu samri iimaanka siiyo. Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee baarlamaanka dalka Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa tilmaamay in marxuumku ahaa halyey qaran oo waqti dheer geliyay dhismaha dowladnimada dalka waxaana la uga bariyay marxuumka in hoygiisa uu Jannatul Firdaws ka dhigo qoyskiisa iyo qaraabadiisa uu samri iimaanka siiyo. Allah u naxariistay xildhibaan Maxamuud Maxamed Seesay ayaa lagu aasay qabuuraha isbitaalka xooga ee magaalada Muqdisho waxaana aaskiisa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ee baarlamaanka dalka xogayaha guud ee Golaha Shacabka siyaasiyiin iyo ehelada marxuumka. Ibraahim Gudle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka magaalada Muqdisho.